ninka dadka ilaysanaya oo waxaan leenahay qof kastoo wax ilaystaay waa xaasid laakiin xaasid walbaba ma aha mid dadka marka ilaysta waxay labadoodaba ay heshiis ku yihiin in qofka kan ay ishu ay ku dhacayso ama la xasdayo in ninka wax xasdaay wuxuu wax ilaysan karaa qofka isagoo maqan isagoo joogaba fiihin qofka wax ilaysanay qofka inuu hor joogo buu ilaysan karaa macnaha waa la tilmaamay waxaan ogaan doonaa macnaha inuu noocan ma mulaaxada marka leeyahay waxay ku kala duwan yihiin ay culimadu ay sheegaan xasadku qalbigu ka soo fulaa ishuna ishay ka timaadaa waxay ku kala duwan culimada ninka xaasidka waxa jooga iyo waxa soo socda buu xasdi karaa laakiin qofku wax ilaysanaya wax soo socda ma ilaysan karo yani haddoo kale nicmo ilaahay ku siiyey baa laga yaabaa inuu ilaysan laakiin wax soo socda ma ilaysan karo macnahaasa marka la tilmaamaya waxaan isweydiinaynaa marka sida ay ishu wax u saamayn karto waxuma khuraafa wax miis ah miya mise wax ku salaysan way nusuusta markay isweydiiyeen waxay culimmadu yidhaahdaan muqaddamo ay kaga dhigeen waxaan arkaynaa qof fayow ah yani caafimaad qaba oo cudur markaa ku dhacay qof hanti haystay hantidiisu ay tagtay qof wax gacanta ugu jiray oo laga xayuubiyey nin socday oo aan socon karin waxyaabahaasoo inay dhacaan baa laga yaaba wuxuu leeyahy xaafid ibn xajar dad fara badan baa isweydiiyey waxaana leenaha buu yidhi dadku dabaa'icdooda way kala duwan tahay nin walba waa tarkiibo gaara warqabin marka wuxuu yidhi waxaan leeyahay buu yidhi ibn xajar alcasalaani qofka wax ilaysanaya markuu isha uu la raaco qofka la ilaysanayo waxaa ka soo baxaya ishiisa sun aynaan arki karin sunta waxay soo maraysaa buu yidhi hawada kadibna qofkii bay ku dhacaysaa waa dadaal isaga muujiyay hadalkaa waxaa muujinaya ibn xajar alcasalaani isagaa tilmaamay fi fatxi ilbaari wuxuuna leeyahay markaan waraysanay kadib dad fara badan oo lagu yiqiin inay dadka ilaystaan baa waxay noo sheegeen buu leeyahay markaan arka wax oo aan jeclaado markiiba waxaa igu dhacaya wuxuu yidhi isma hayn karo oo kulayl baan dareemaya isheeda ka soo baxaya dad fara badan baa laga hayaa hunaa marka macnaha iyada ah waa macno markaa macquula waa meesha uu leeyahay bacd alculamaa ay leeyihiin maadan arkin miyaa meel baad fadhiisanaysaa qof daaf qaba ayaad indhaha la raacaysa adna indhaha ku xanuunaya yani adiga indhaha waa ku xanuunaya markiiba waxaad dhici karta maalan in noocan ma sida ay sheegaan yani ta'hiirka ay yeelan karta waxaa ka mid ah haddii qofka uu caroodo oo kale amaba qof aad ka xishoonaysid oo qadarinaysid markuu kaa soo horbaxo kale wejigaagu isbedelaya markaad baqdid oo kale wejigaagu isbedelaya ta'hiir bay marka yeelan kartaa maxaad u malaynaysaa buu yidhi qof bini aadama markaa ku hor jooga macnaha waa macnaha marka la tilmaamayo idan ibn alqayim aljawziya wuxuu leeyahay ta'hiirka kan amaba saamaynta ay ishu ay ku yeelan karto qofka bini aadamka waa mid ruuxi ah waa ruuxi ah oo sida macnaha hadda aan tilmaanno oo bimacnaa waana macno markaa meeshiisa la biidni illahi subxana wa tacaala waxay culamada marka waxay leeyihiin waxay ahaataba waxaan kusoo gunaanada inaan leenahay amaba qofka ruuxi ha noqdo ama si kale ha noqoto waxaa hal shay aan isku waafaqsannahay ah in arrinka kan uu yahay arrin fuli kara rasuulka sala allahu alayh wasalam axaadiisa uu ku tilmaamay cid diidi kartana markaa male waxaana jira marka waxyaaba fara badanoo runtii inaga aynaan fahmi karin wuxuu tilmaamaya nin ay ku magacaabaan doctor maxamed cabdisamad kitaab uu leeyahay uu ku magacaabo gharaaib cajaa'ib wuxuu yidhi waxaa jira buu yidhi jiir ama dooli taxas jooga buu yidhi waxaa dhici karta buu yidhi isagoo meesha maraya haddii uu ka soo horbaxo xayawaankan xamaaratada ah isagoo masaafo u jira ayuu dili karaa buu yidhi wuxuu kaloo tilmaama haddana wuxuu leeyahay gabar ruusiyada ayaa waxaa la sheegay meel bay fadhiisanaysaa haddii ay aragto ukunta shaharka ku dhex jira bahasha jaallada ah ayay iyadoo meesheeda fadhida indhaheeda kaga siibi kartaa waxaa la arkay buu yidhi la soo xigtay alcilmu alxadiid uu soo xigtay qof meel fadhiyo xaggaa ka hagi kara bahasha kambaska buusalada ah ee jiheeyaha ah yani wuxuu yidhi waxaa jira waxyaaba innaga aynan fahmi karin ilahay maqaadiri ishan markaa uu dhex dhigay waa markay macnaha marka tilmaamayaan su-aasha marka aan u baxaya waxay tahay isha haddii aan isla garan inay jirto waana bayt alqasiid meesha aan u soconno waa kan maxal baram lineka darsiga uu ku saabsan yahay dawadu maxay noqon kartaa biidni illahi subxana wa tacaala waxaan ognahay in jaabir laga soo xigtay inuu rasuulka sal alla alay wasalam uu yidhi cudur walbaba daw uu leeyahay ee haddii qofka la asiibo dawadii cudurka ha loo raadiyo xadiid ba ahaa dawada waxay noqon kartaa sida soo socota xadiidkii abu umaamay culimmada wax kasta ku saleeyaan wuxuu rasuulka sala allahu alay wasalam uu yidhi laba arrimood buu u sheegay kow midna wuxuu u sheegay inta isha aanay dhicin alaa barakt maxaad baaraka allahu u dhihi weyday waa mid ta labaad cudurka markuu dhacay kadibna wuxuu yidhi waxaad u samaysaa buu yidhi isu dhaqdhaqo u weysayso oo u samey hawsha marka lagu dirsanayo maxaa la samaynaya marka hunaa marka siday culimmadu ay tilmaamaan sida dawada waxaa noqon karta midda ugu horraysa kow
dawada xadiidkan waxaan kala dhex baxaynaa inta isha aanay dhicin ka hor waa inuu qofka la yimaado markuu is og yahay inuu wax elaysan karo ama wax ay aad iyo aad u cajabiyaan waa inuu yidhaahdo baaraka allahu fiik hadalkaa inuu yidhahdo baaraka allahu laka inuu yidhahdo macnaha inuu yidhaahdo maxaa xadiidka wuxuu ahaa idaa ra'a axadukum min akhiih hadduu midkiin walaalkii wax uun ku arko falyadcuu lahu bilbaraka yidhahdo baaraka allah xadiidka waa xadiis saxiixa rasuulka sal lla ly slm macnahaasuu marka tilmaamay see loo leeyahay marka baaraka allahu waa in qofku yidhahdo baaraka allahu fiik ama allahuma baarik calayh sifadaa way sifada markaa soo arortay sifadan badanaa ay dadku sheegaan malaynayaan aayaddii ahayd lowlaa id dakhalta jannataka walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allah laa quwata ila billah labadii nin ee ninkii ninka kale u faanaya wuxuu yidhi beertaada markaad gashay maxaa u dhihi weyda maa sha allah culimmada marka waxay leeyihiin waxaa meesha laga qaadan sida ibnu kathiiri hayru uu leeyahay wax ku cajibiyey markaad aragtay waxaad tirahdaa maa sha allahu dheh maxaad leedahay maa sha allahu laakiin nusuusta ku soo orortay maa sha allah o dhan axaadiida wax badbaaday markaa male xagga dacfiga ah waxaase wanaagsanaan lahayd in baaraka allahu markaa lagu gaabsado haddii qof ma noqon karto badanaa dadka waxay ku daweeyaan asalaatu cala nebiga sal lla ly salligiisa lagu aqriyo nebiga salligiisa fadli buu leeyahay ajir fara badan buu leeyahay murugtaa lagu qaadaa qofkii rasuulka sal lla lay slm ku salliyana ajir fara badan buu leeyahay laakiin qofka in lagu tufo maaha macnahana waa macnaha caqiidada taabanaya muhiimadiisana markaa leh inaan marka fahmno habka marka rasuulka sal lla lay slam uu u tilmaamay maxay aan sidee u noqon kartaa marka qusliga axaadiida markaad u kuurgashid marna wuxuu leeyahay wudu' bay axaadiidu tilmaamaysaa weysasho in la weysaysto marna waxay tilmaamaysaa qofka inuu isdhaqdhaqo labadaba way tilmaantay axaadiidta laakiin sifada waxaa fasiray alimaamu zuhri wuxuu leeyahay sifada saxda ah ee aan ka soo gaarna culummada oo ay xadiidka ku fasiri jireen waa sida soo socota qofkii wax ilaystay waxaa loo keenayaa weel biyo markaa ay ku jiraan digsi adigu keen dheri adigu u keen baaf u keen baaldi u keen waxaad heli karta soo hordhig kadib markuu meesha soo fadhiisto zuhri wuxuu leeyahay gacantiisa midig ayuu darayaa kow hadalkan waxaan jeclaan lahay inaad ku baraarugtaan sifada maxaa yeele qof walba inuu isaga samaystaa loo baahan yahay haddiiba arrinka uu jiraba gacantiisa midig buu darayaa kadibna wuu luqluqanayaa isla weelkii buu ku tufayaa kadibna wejiga ayuu dhaqayaa haddana hal mar buu biyaha saa ugu shubaya yacni qasligan kuu sheegaya biyuhu saas ugu shubaya wejiga kadib markuu dhammeeyo kadib gacanta bidix buu darayaa haddana wuxuu ku shubayaa gacanta midig meeshaa midigtaa kafkuu ku shubayaa haddana gacanta midig buu darayaa haddana wuxuu ku shubayaa kafka kale ee bidixduu ku shubayaa intaa markuu sameeyo kadib haddana wuxuu darayaa gacanta bidix markaasu wuxuu ku shubayaa meesha xusulka ama suxulka meeshaad dhihi lahayd haddana gacanta midig buu darayaa haddana tan bidix buu saa ugu shubayaa intaa markuu maraya kadib buu haddana wuxuu aadayaa lugta midig gacanta bidix buu ku darayaa lugta midig buu ku shubayaa haddana gacanta midig buu darayaa lugta bidix buu ku shubayaa intaa markuu maraya haddana wuxuu u soo laabanayaa gacanta bidix buu darayaa lowga midigtuu ku shubayaa haddana gacanta midigtuu daraya lowga bidixduu ku shubayaa intaa marka la sameeyo kadib zuhri hadalladiisa waxaa ka mid a intaa weelka waa kor baa loo sii hayaa buu yidhi qofka saa u jeesa marka leeyahay dhabarka lagaga shubayaa markana waa ka boodaya buu yidhi hadalkan uu leeyahay weelka sidiisa ha loo hayo uu leeyahay ibnu alcarabi wuxuu leeyahay waa taxakumayn karaa yani macnaha inaan ku baraarugno wey arrin kale wuxuu yahay alimaam الnawowi wuxuu leeyahay wax la leeyahay gusli ma jiro qofkii inuu dhaqdhaqdo maaha laakiin biyaha wasaasaa ugu shubaysaa keliya walidaalika waxaan mulaaxadaynaynaa walaalaha dadka badanaa daweeya in ay ku khasbaan qofka inuu meesha rogo mana aha sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam kullu maa fi lamri sabba wey saasaa lagu rogaya un biyaha keliya rogitaankaabaa kaafiya biidni illahi subxaana wa tacaala intaa waa habka sunnada rasuulka sal alla alay wasalam marka kale ee ku xigta waa maxay daakhilat alizaari waa qaybta ugu dambaysa 18 daakhilat alizaari waa halkee ma meesha qofka guntinka uu ka xirtaa oo macawista ama suunka qofka markuu surwaalka xiranayo mise waxaa loola jeedaa isla maradii uu xirnaa miyaa loola jeedaa mise waxaa loola jeedaa meelihiisa hoose xubinta taranka ku beegan miyaa loola jeedaa saddexduba way yidhaahdeen waxaana xoog badan in loola jeedo meesha qofka markaa guntinta uu ka xirto soo bilaaba marka meelaha uu rasuulka sala allahu alay wasalam tilmaamay yani waxaa la tilmaamay waa ugu horayn yani markii wejiga laga hadlay oo labada kafayn la taabtay oo labada suxul la taabtay oo labada lowyood la taabtay oo shanta farooda midigta la taabtay oo shanta farooda bidixda la taabtay oo daakhilat alizaar waa 18 meel meeshuu nasku markaa uu tilmaamay wuxuu leeyahay marka zuhri sidaa baanu ka soo gaarnay dadkii horreeyey
جمهور المفسرين من السلف إن أساسا كسو قارنة صفة ولي الإمام النووي وصفة صحراء أي مركة واحد مركة كدر السلام بإذن الله سبحانه وتعالى